barnaamijkan oo ay soo abaabuleen ururka dhalinyarada Somaliland Job Project ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland oo ay kamid ahaayeen wasiir ku-xigeenada wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dhinaca degmooyinka iyo gobolada Somaliland iyo dhalinyaro tiro badan oo kamid ah dhalinyarta Somaliland iyo marti sharaf lagu soo maamusay munaasabadaasi. daafurka barnaamijkan oo loogu talagalay in shaqo loogu abuuro 1,000 qof oo kamid ah dhalinyarta Somaliland ayay ka hadleen guddoonka ururka shaqo abuurka dhalinyarta Somaliland waxaana ay ku dheeraadeen qiimaha ay leedahay dhiirigelinta daayirta Somaliland iyo siyaabaha kala duwan ee loogu abuuri karo shaqooyin kala gedisan. waxaana intaasi ku dareen in ay muddo dheer ku hawlanaayeen sidii ay fikir wax ku ool ah ugu soo bandhigi lahaayeen dhalinyarta Somaliland aakhirkiina ay ku guuleysteen hirgelinta mashruucan shaqada loogu abuurayo 1,000 kamid ah dhalinyarta. dhankoodana wasiirada arrimaha bulshada iyo cadaaladda Somaliland ayaa iyaguna ka hadlay doorka kaga aadan dhiirigelinta dhalinyarta Somaliland. ugu horreynna waa kan wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada Somaliland mudane Maxamed Cabdi Obsiye oo ka hadlay daafurka barnaamijkan. shaqo abuur hadduu yahay mid yani maaragtay practical oo yani si toos loo qabanayo iyo mid yani maaragtay electronic labadaba shaqada waa lagu abuuri karaa. waxaan u maleynayaa shaqo abuurka dhalinyarada soo qaabisay waa mid electroniga qofkuna isagoo gurigiisa jooga uu dee shaqaynayo haddii uu shaqadii sidaas ku helo oo shaqada ku xidhmo isagoo gurigiisa jooga inuu shaqo gelayo aad iyo aad bay runtii muhiim u tahay wayna fiican tahay dhalinyaradana waa ku dhiirigelinaynaa idinka iyo inta kale hadday naga maqan intiina halkan fadhida iyo inta kale dhalinyara maanta shaqo diyaar u ah kulley qayb bay ka qaadanaysaa in ay iska fadhigii iyo qaaxihii iyo fadhi ku dirarkii in inta laga baxo in shaqo loo tafaxayto. shaqo abuurku dhowr nooc buu ku yimaadaa halkan aan hore uga sheegay mid publica oo dhinaca dowladda ah iyo mid private ah oo private sector ku leeyahay labadaas dhinacba uu ku imanaya. tan hadda aan maanta u fadhina waa private sector-kii weeye. geestiisana Axmed Faarax Cadare wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland ayaa soo dhaweeyay barnaamijkan lagu dhiirigelinayo dhalinyarta Somaliland. sibira wadada dadku lahaayeen tan waa fahmayeen anigu waxaan ahay mentor ama la taliye maadaama ay ka soo qayb qaadatay